sidee wiilkan yarka ah ee agoonka ah oo ku dhisay shirkad maanta dhaqaalaheeda uu ku fadhiyo 13 bilyan oo dollar kana howlgasha caalamka oo dhan shaqaalaheedana kor u dhaafayaan 30,000 oo shaqaale. The latest edition of the Rolex Motor and Protégé Art Initiative. labada 17 saacad Rolex ayaa waxa lagu iibsaday xaraash qiimihiisu gaaray 17.8 milyan oo dollar waxayna ka dhigaysaa saacadii abid ugu qaalisaneed oo dunida la gato. The most famous watch in the world. It's the Rolex featured in this iconic photo of legendary actor Paul Newman. In the world of collector's watches, the #1 most sought after watch is the Paul Newman Daytona. Haddaba waa maxay sababta sidaas oo dhan ay ugu qaalisan tahay saacadda Rolex? Taajiriinta dadka milyaneerada ah kuwa saameynta bulshada ka dhaxleh oo gaaray mansab sare kulligood waxay ku tartamayaan xirashada saacadda Rolex. Saacadaha Rolex maxay sidaan oo dhan dunida ugu faafeen dadkana ugu tartamayaan inay gacantooda ku xirtaan waliba ayadoo aanan ahayn saacadda dunida ugu qaalisan oo waxa ka sareeyo shirkado soo saara saacado ka qaalisan kuwa ay Rolex samayso. You take this Rolex Commander. magacaygu waa Cabdiqafaar Gamaadiid oo idin leh meel walba oo joogtaan soo dhawaada muuqaalkeenana waxa uu ku saabsan yahay qisada iyo guusha meesha ay ka soo bilaabatay shirkadda Rolex ee samayso saacadaha qaaliga ah. qisada Rolex waxa ay ka soo bilaabatay Hans Wilsdorf oo ahaa aasaha iyo maskaxda kambanigan wuxuu ku dhashay wadanka Germany 1881 waxaana iska dhalay hooyo lagu magacaabo Anna iyo aaba lagu magacaabo John laakiin 12 jirkiisa labadiisa waalid waa ay dhinteen mas'uuliyadiisana waxa la wareegay adeerkiis iskuul boarding ah ayuu geeyay wuxuu noloshiisa la kac kufaba Hans iskuulkaas boarding waxay u siyaadisay inuu barto luqado kala duwan marka laga soo tago luqadda asaga uu ku dhashay oo Jarmalka ah wuxuu bartay luqadda Ingiriiska iyo Faransiiska kadib iskuulka markuu ka qalin jabiyay wuxuu soo aaday wadanka Switzerland wuxuuna ka shaqo bilaabay kambani lagu magacaabo Kuna Carton oo saacadaha u iibgeeyay wadanka UK luqadihii uu Hans yaqaanay waxay u sahashay inuu dadka aad u dhaxgalo wuxuuna ka ag dhawaaday injineeriyada kambaniga u sameynaya saacada meeshaas ayuu waqti aad u badan ku bixin jiray wuxuuna aad u xiiseynayay inuu faham guud ka helo qaabka ay saacadaha u shaqeeyaan Hans wuxuu fahmay qaababka kala duwan ee saacadaha loo sameeyo 1903 wuxuu soo aaday UK wuxuuna imaaday London meeshaas ayuu ka bilaabay shaqo kadib hal sano uu shaqeynayay oo iskaga tagay shaqadii isla sanadkii xigay 1904 asagoo 24 jir ah ayaa wuxuu go'aansaday inuu ka xoroobo adoonsiga shaqaaleysiga ah wuxuuna u jihaystay inuu bilaabo ganacsi uu asaga leeyahay go'aankii ugu fiicneed ayuu qaatay oo dhabaha guusha ayuu cagta saaray inta aad weligaa qof u shaqeynaysid oo aad shaqaale tahay guul ma gaaraysid ee qofkaas guushiisa ayaa ka shaqeynaysaa Hans fikrad ganacsi ayuu haystay laakiin ma uusan haysan dhaqaale ku filan oo uu ku bilaabi karo ganacsi uu asaga leeyahay laakiin fikirkiisa wuxuu u bandhigay seedigii oo markaas lacag haystay oo lagu magacaabo Alfred Davis seedigii ayaa ku taageeray oo maal geliyay kadib waxay sameeyeen kambani ayaga u khaas ah Switzerland ay saacadaha ka keeni jireen kadib waxay ku iibin jireen saacadahaas UK waaga saacadaha dunida laga isticmaali jiray waxay ahaayeen saacadaha darbiyada lagu dhajiyo sidoo kale nimankan waxay isticmaali jireen saacado pocket watch la dhaho ama saacad jeebka lagu qaato oo dunida lagama aqoon saacad gacanta lagu xirto dumarka kaliya ayaa gacmaha ku xiran jiray jijimo iyo wax isku qurxiyaan laakiin nimanka waxay u arkeen ceeb inay gacmaha wax gashtaan Hans Wilsdorf hamigiis waa uu ka weynaa in saacada uu keeno kadibna uu sii iibiyo laakiin waxa uu ku fakarayay inuu asaga saacada uu sameesto wuxuuna bilaabay qorshe ah inuu wax ka bedelo qaabka ay saacadaha dadku u isticmaalaan wuxuu sheegay in saacadaha pocket watchka ama saacadaha jeebka lagu qaato aysan sii socon doonin mustaqbalka oo ay bedeli doonaan saacadaha gacanta lagu qaato wuxuuna go'aansaday kambanigiisa inuu u bedelo kambani sameeya saacadaha gacanta lagu qaato laakiin fikradan waxa ka hor imaaday dadka asaga la shaqeynayay oo waxay u sheegeen inay riski tahay oo aysan aqbalaynin wax hadda dunida ku cusub inay ku tijaabinayaan ganacsigooda cusub laakiin Hans uu ku dhaga adeegay wuxuuna go'aan ku qaatay inuu sameeyo saacad gacanta lagu xirto asxaabta asaga la shaqeynaysan oo ku qanciyay go'aan qaadashadaasna waxay ahayd go'aan aad u adag sababtoo ah waxaad alifaysaa ama keenaysaa wax dunida ku cusub oo aadan ogeyn inay ku sii socon doonto in kale haddii aad ganacsi ku jirtana waa laga maarmaan inaad tijaabiso wax walba oo faa'iido kuu keeni karo waxay dhaqaale iyo hanti hayeen waxay galiyeen shirkadda inay sameeyaan saacadaha gacanta lagu qaato magaca shirkaddan waxaa la bixiyay waagaas waxaana loo bixiyay Rolex kadib waa laga bedelay oo waxaa loo bedelay magaca ah Rolex Watch Co Limited xarunta shirkaddan waxa ay ka dhigteen London 1910kii Rolex waxa ay ku guuleysatay ama noqotay oo loo aqoonsaday shirkad samayso shirkadaha saacada gacanta shirkadda ugu fiican ganacsigoodana waxa uu shaqeynayaa 7 sano kaliya laakiin 1914kii waxa qarxay dagaalkii koowaad ee adduunka
Jarmalka iyo UK-na waxay noqdeen cadow. shirkadda Rolexna xaruntooda ugu weyn waxay ku taalay UK London. caqabad ayaa soo wajahday Hans. dowladda UK ayaa waxay canshuur 33% ku soo rogtay alaabaha qaaliga ee ka imaanaya banaanka si loo xakameeyo dhaqaalaha waddanka oo waagaas dagaalka koowaad ee adduunka wuxuu saameeyay dhaqaalaha. Hans Wilsdorfna wuxuu sameeyay si uu uga fogaado caqabadan xarunta shirkadda wuxuu u soo bedelay waddanka Switzerland. meeshaas ayuuna ganacsigiisa ka sii watay. waqtiga uu dagaalka koowaad ee adduunka socday shirkadda Rolex aad ayay u faa'iiday. ciidamadii militariga ee waagaas dagaalka ka qayb qaadanaya ayaa waxay bilaabeen inay aad u gataan saacadan Rolex ee gacanta lagu xirto maadaama saacada jeebka lagu qaadan jiray ay u arkeen waqti lumis. bilowgii 1920kii Hans Wilsdorf waxa uu sameeyay ficil ka dhigtay ilaa maanta in la hadal hayo shirkadan Rolex. dadka caanka ah iyo tujaartana u tartamayaan xirashada iyo inay iskugu faanaan saacada Rolex. Hans Wilsdorf wuxuu bilaabay in qof walba oo dunida waagaas caan ka ahaa uu xirto saacada Rolex. fanaaniinta, ganacsatada, ciyaaryahanada, madaxweynayaasha iyo dadka saameynta leh qof walba oo caan ahna waxa uu soo muujinayay xirashada saacada Rolex. idaacadaha ayuu xayisiin ugu sameeyay, sidoo kale joornaalada ayaa lagu xayisiin jiray saacada Rolex. ilaa dadka caqliyadooda ee ka dhaadhacday qaab psychology ahaan ah qofka guusha sameeyo iyo saacada Rolex inuu xiriir ka dhaxeeyo. 1926 shirkadda Rolex waxay soo saartay saacadii abid ugu horeysay oo waterproof ah ama aan biyaha waxba ka dhibeenin. taasna waxay u sii sahashay in aad loo xiiseeyo. Hans Wilsdorfna waxa uu sii xoojiyay in qof walba oo dunida saameyn ku leh ay gacantiisa ku xirnaataa saacada Rolex. kooxdii abid dunida ugu horeysay oo fuusha buurta dunida ugu dheer waxay wateen saacada Rolex. sidoo kale ciyaaryahankii caanka ah ee lagu magacaabay Donald Malcolm oo caanka ku ahaa ciyaaraha Olombikada ee loo yaqaanay land speed ayaa waqtiga uu ku guuleysanayay ciyaarahaas gacantiisa waxa ku xirneed saacada Rolex 1964. sidoo kale shirkaddan xayisiimaheeda waagaas intaas kuma isan ekeen oo 2006 waxay heshiis sponsor la saxiixdeen ciyaaryahanka caanka ah ee kubadda tennis ee lagu magacaabo Roger Federer ee u dhashay waddanka Jarmal. waxay la saxiixdeen heshiis 10 sano ah oo qiimihiisu dhan yahay $15 milyan sanad walbana waxa uu qaadanayaa $1.5 milyan kaliya. asaga shaqadiisa waxay tahay waqtiyada uu ka qayb qaadanaya ciyaaraha in gacantiisa uu ku soo xirto nashqadaha kala duwan ee sameeyay shirkadda Rolex. sidoo kale xayisiintooda waxay gaarsiiyeen filimada oo James Bond ayaa soo muuqday asagoo gacantiisa ay ku xiran tahay saacada Rolex. qoyska boqortooyada England iyo dhammaan dadka caanka ka ah dunida qof walba waxa uu xiran yahay saacada Rolex. 2017 saacad uu lahaa jilaagay Paul Newman ayaa waxaa lagu iibsaday xaraash qiimihiisu dhan yahay $17.8 milyan kaliya. waa hal saacad oo intaasoo lacag lagu bixinayo waxayna noqotay saacadii abid ugu qaalisaneed oo dunida la gato. The most famous watch in the world. It's the Rolex featured in this iconic photo of legendary actor Paul Newman. In the world of collector's watches, the #1 most sought after watch is the Paul Newman Daytona. haddaba su'aasha uu qof walba isweydiin kara ayaa ah maxay dadka intaasoo lacaga ugu bixinayaan saacadan inay helaan ayagoo awooda inay gataan saacado raqiis oo ay waqtiga kala socon karaan. xitaa taleefanada smartphone-ka ayaad kala socon kartaa waqtiga, uma baahnid in gacanta ay kugu xirnaato saacad. su'aashaas jawaabteeda Rolex saacad kaliya ma ahan ee waa astaan ka turjumaysa shakhsiyadaada iyo heerka aad taagan tahay, sidoo kalena muujinayso inaad tahay qof nolosha guul ka sameeyay. waa hadafka ay kala hayeen suuqgeentooda in dadka caqligooda laga dhaadhacsiiyo qaab psychology ahaan ah guusha iyo Rolex inay isku xiran yihiin. waana sababta shirkaddan magaceeda uga hormaray shirkadaha sameeya saacadaha. haddaba mid ogow, Rolex ma ahan saacada dunida ugu qaalisan oo waxaa ka horeeyo shirkado kale oo sameeya saacado ka qaalisan saacadaha ay Rolex sameyso. laakiin Rolex waa midda ugu caansan looguna isticmaalka badan yahay. sanad walba waxay soo saaraan 800,000 ilaa 1 milyan oo saacadood oo aad uga hooseyso dalabka suuqa yaalo. haddii maanta aad dalbato saacad Rolex waxay kugu qaadanaysaa 3 bil ilaa 4 bil inaad sugto. haddaba ayagoo la socda dalabka suuqa yaalo inuu aad u badan yahay maxay u soo saari laayihiin saacado aad u badan oo dalabkaas baahidooda tiro. sirta ganacsi ee Rolex ay isticmaalayso waxaa loo yaqaanaa marka economiga la joogo Veblen Goods. inta aanan sharxin Veblen Goods waxaan aadaynaa qaabka caadiga ah ee u shaqeeyaan shirkadaha iyo dhaqaalaha. haddii maanta aan iibinayo shaygaas qiimihiisana aan kor u qaado waxa yaraanayso in dadka ay gataan oo shaygaas dalbashadiisa aad ay u yaraanaysaa. tusaale waxaan iibinayaa taleefan iPhone ah waxaana ku gadayaa $100 qiimihiisana hoos ayaan u dhigay. dad aad u badan ayaa taleefankaas soo dalbanayo sababtoo ah way wada awoodaan. taas cagsigeeda haddii qiimaha aan kor u qaado waxa yaraanayso ayadana dalbashada. economicana waxay dhahaan the higher the price the lower the demand. sidoo kale the lower the price the more the demand. laakiin Veblen Goods ayada sidaas uma shaqeyso oo cagsigeeda ayay u shaqeysaa. haddaba waa maxay Veblen Goods? waxaa loo yaqaanaa alaabta high quality-ga ah
qiimaheedana mar walba qaaliga uu yahay waxaana nidaamkan ku shaqeeya shirkadaha waaweyn ee soo saara alaabaha qaaliga ah mar walba oo qiimaha wobbling goods kor loo qaado dimaanka ayaa bato oo dadka soo dalbanaya ayaa zaa'id noqdo dadka caanka ah oo lacagta haysta waxay ka adeegtaan shirkadaha magacooda aadka u sareeyo sida shirkada dharka samaysa ee Gucci hadday gaariyaal u baahan yihiin waxay gataan gaariyaasha Lamborghini Bugatti Ferrari laakiin kambaniyadan hadday qiimaha hoos u dhigaan taas macnaheedu waxaa weeye dadkoo dhan ayaa wada awoodo laakiin shirkadahan si faa'iido u helaan mar walba qiimaha ay kor u qaadayaan oo waxay ka dhigayaan qiimo ay awood u leeyihiin kaliya dadka levelka sare dadkaas ayaana ku tartamaya oo iskugu faanayo Rolexna sidaas ay u shaqeysaa oo maanta qiimaheeda hadday hoos u dhigto qof walba oo dunida jooga wuxuu awood u yeelanayaa in gacantiisa uu ku soo xirto saacad Rolex ah oo meeshaas waxa ku lumayo qiimihi iyo value-ga ee lahayd shirkadda waa sababta dadka lacagta la kaliya ay u awoodaan in gacantooda ay ku soo xirtaan saacadda Rolex taasna waxay kor u qaadaysaa sharafta iyo qiimaha ay leedahay shirkaddan muuqaalkeena intaas ayuu noogu egyahay haddii aad nagu cusub tahay soo dhawow waqtigaagana waad ku mahadsan tahay